calaykum kusoo dhawo muuqaalka maanta. Waxaan ka hadli doonaa qaababka kala duwan ee jirka bini'aadamka uu kala yahay. Haddii aad waqti badan ay kugu qaadatay inaad miisaan iska riddo ama aad murqo yeelato, maanta haddii aad fahanto nooca tahay jirkaagu yahay ama muuqaalka uu yahay jirkaaga, waxaa kuu fududaanaysa inaad hesho jirka aad jeceshahay ama ku riyoonaysid iyo miisaanka aad jeceshahay inaad iska riddo si fudud. Muddadii dambe, cilmi-baarayaasha dhanka sayniska waxay ogaadeen inaad fahanto nooca jirkaagu yahay ama muuqaalka uu yahay ay sahlayso inaad fahanto hormooniska ama dheecaanada jirkaaga ku badan iyo cunnada loo baahan yahay inaad cunto, kuwaasoo kaa dhigaya inaad ku guulaysato waxaad jeceshahay inaad noqoto ama aad hesho, iyo inaad looga hortago ama uga hortagto xanuuno badan oo noloshaada sii joogtayn kara ama khatar ku noqon kara inay kugu dhacaan. Muuqaalka maanta ayaan ku qaadi doonaa. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka soo booqo, subscribe dheh, like dheh videoga, share u dheh asxaabtaada. 1940kii, dhakhtar loo yaqaan David Shelton oo ku takhasusay cilmiga nafsiga ayaa alifay 3 nooc oo jirka bini'aadamka uu yahay. Wixii ka dambeysana cilmi baarisyo badan la sameeyay, aqoon badan loo yeeshay. Nooca koowaad waxaa la dhahaa ectomorphy. Dadkani waa dad dhaadheer, luga dhaadheer, jirkoodu waa dad aad u jimicsi badan ama aad u firfircoon. Jirkoodu wuxuu sameeyay qaab 4 gees ah. Inta badan waa dad cunitaankoodu aad u fara badan yahay, waxay arkaan cunayaan balse aysan aad u cayilin. Sidoo kale waxaa ku adag inay murqo dhistaan si fudud, taasoo keenayso in uu aad u sarreeyo hab burburinta jirkoodu, taasoo cunadii marka ay cunaan isla markiiba looga faa'iideysanayo tamar ahaan oo aan jirka lagu sii keedinayn. Cunooyinka aadka u cunaan waxaa ka mid ah cunooyinka loo yaqaan carbohydrateska. Cunooyinkan sonkorta dhiigga isla markiiba ay aad u kicinayaan, oo cunooyin sonkortu aad ugu badan tahay. Cunooyinkan sidoo kale waxay aad u cunaan cunooyinka fast foodka loo yaqaan, cunitaankoodu fara badan yahay. Tani waxay ka dhigaysaa in cunadii isla markiiba la burburiyo, tamar ahaan looga faa'iideysto. Taasna waxaa ka qayb qaadanaya dheecaanka loo yaqaan thyroid hormone oo soo daaya thyroid gland oo ku yaala dhuunta, kaasoo burburinaya shaqadiisu tahay inuu burburiyo. Sidoo kale haddii aad mar walba waxaad cunto cunooyinka carbohydrate ka buuxaan oo sonkorta si zaid ah u kicinaya, haddii aadan cayilnayn, waxay kugu keenaysaa xanuunada dadka cayilan ku dhaca oo ay ku keentay cunitaanka faraha badan. Sidoo kale dadkani waa dad garba yaryar, miska yaryar, waxay aad ugu fiican yihiin dad aad u shaqo badan waaye. Haddii ay cayilaanna 85 ilaa 90 kg ka badan ama kilogram ma cayilaan. Haddii cayilaanna, cayilkoodu wuxuu ku kooban yahay kaliya caloosha. Waxay u baahan tahay inay iska gooyaan caloosha ama iska ridaan miisaanka caloosha ka fuulay. Tusaale waxa uu ah dadka basketballka dheela iyo orodada. Orodka aad ay ugu fiican yihiin. Mar orodkooda aad ku fiican yihiin waxa u sahlaya tamarta badan ay u baahan yihiin iyo dhiig yar oo u baahan yihiin inay isticmaalaan muddada ay ku jiraan. Nooca labaad waxaa loo yaqaan mesomorph. Dadkan waa dad gaaban, jirkooda qaybtooda sare ayaa u weyn yihiin, miska yaryar iyo lugo yar bay leeyihiin. Dhalanayn jirkooda qaybtooda sare ayaa waxaa ku badnaa qaabilayaasha hormoonka loo yaqaan ama dheecaanka loo yaqaan androgen, kaasoo qayb muhiim ka ah koritaanka murqaha. Marka ay dhalanayaan waxay ku dhalanayaan ama ku dhashaan jirkooda qaybtooda sare oo ay aad ugu xoog badan yihiin. Marka loo eego jirkooda qaybtooda hoose wuuna ka weyn yahay jirkooda qaybtooda sare ayaa xoogaa weyn marka loo eego qaybtooda hoose. Sidoo kale waxay leeyihiin hab burburinta ama dheefshiidka jirkooda ayaa ka hooseeya ectomorphiga marka loo fiiriyo. Tanina waxay ka dhigaysaa in cunada ay qaataan waqti badan ay jirka ku jirto, dhiigga la geeyo, kadibna uu muruqi si aayar ah u qaato nafaqadii si joogtaana uu u koro murqi. Sidoo kale haddii ay gymka aadaan ay isku raacaan qof ectomorphia sina u tababartaan qofka mesomorphiga waqti yar ka yar aad uga yar dhanka ectomorphiga marka loo eego ayay ku qaadanaysaa in murqihiisa uu dhiso. Sidoo kale waxaa cagsi ku ah haddii ay wada ordaan, qofka ectomorphiga uu waqti dheer ayuu ordayaa, halka mesomorphiga ay ku qaadanayso 2 jibaar 3 jibaar energy uu isticmaalay
mid ka badan qofka ectomorphiga iyo dhiigga uu isticmaalay, taasoo ka dhigaysa in qofka mesomorphiga uu waqti yar ku daalo halka ectomorphiga uu waqti dheer u ordi karo. taasi micnaheedu waxa weeye ectomorphiga waxay ku fiican yihiin orodada, mesomorphigana waxay ku fiican yihiin ciyaaraha u baahan xoogga oo loo maro jir dhiska. Mesomorphiga dadka ahi way u fududahay inay jirkooda dhisaan si fudud ama miisaan iska ridaan waqtiga ay rabaan marka loo eego dadka noocyada kale ee jirka. sidoo kale waxaa tusaale fudud dadkan u ah ama ku garan kartaa waa dadka inta badan kubadda dheela sportska ah iyo jimicsiyada kale ama dheelaha kubadaha kale oo ah sida musaaracooyinka dadka dheelo kale. waa inta badan waxay u baahan yihiin dad mesomorphian ka wada, waa dad jirkooda qaybtooda sare ay aad uga dhisan yihiin marka loo eego kuwa kale. haddii ay subax jimka aadaan ay isku raacaan qof ectomorphia ayna sameeyaan biraha ay qaadaan bench presska loo xabadka lagu dhiso, qofka mesomorphiga si waqti yar ay ku qaadanaysaa in murqihiisa ay koraan halka ectomorphiga waqti ka badan ay ku qaadanayso, laga yaabaa inuu ku daalo. taasina micnaheedu maaha inuusan heli karin, waa inuu yaqaano nooca jirkiisa uu yahay iyo jimicsiga uu u baahan yahay iyo cunnada ku habboon iyo jimicsiga kusii habboon inuu fahmi karo. sidoo kale dadkan haddii cunnada ay cunayaan aysan la socon mesomorphiga way cayilayaan si fudud. cayilkooda inta badan wuxuu ku aruuraa jirkooda qaybtooda sare. nooca saddexaad la endomorphy, dadkani waa dadka ugu cayilan, waa dad gaagaaban, miskahooda waa ballaaran yahay, jirkooda hoose aad ayuu u ballaaran yahay marka loo eego qaybtooda sare, waxay cagsi ku yihiin mesomorphiga. dadkani markay qaabilayaasha hormoonka loo yaqaan androgen ayaa wuxuu ku badan yahay jirkooda qaybtooda hoose, kaasoo ka dhigaya inay jirka qaybtooda hoose aad ugu adkaado ama u xooganaado marka loo eego jirkooda qaybtooda sare. sidoo kale dadkan baruurtooda iyo muruqooda waxaa badan, baruurtooda badan, muruqahooda ayaa yar. sidoo kale habdhiska burburinta jirkooda ama dheefshiidkooda ayaa hooseeya, kaasoo ka dhigaya in si joogta cunnada ay cunaan aan loo geeyo dhiigga. sidoo kale si fiican uma burburiyaan carbohydrateska cunnooyinka loo yaqaan oo waqti badan ay qaadata in jirkii uu burburiyo dhiiggiina la geeyo, taasoo ka dhigaysa in si joogta dhiigga loo geeyo sonkor joogta. sonkortaasi waxaa loo bedelayaa marka dambe baruur. mar walba cayilkooda cunno walba ay cunaan way kusii cayilaan dadkani. haddii endomorphiga iyo mesomorphiga ay jim aadaan ay qaadaan biraha squatka loo yaqaan ay sameeyaan, dadka loo yaqaan endomorphiga waqti yar ay ku qaadanaysaa in ay murqahooda lugaha ay dhisaan halka mesomorphiga waqti ka badan ay ku qaadanayso. taasina micnaheedu waxaa weeye murqahooda qaybtooda hoose ayaa xoog badan halka mesomorphiga ay qaybta sare u xoog badan yihiin. inta badan endomorphiga fadhigooda ayaa aad u badan, cunitaankooda ayaa sarreeya, kaasoo ka dhigaya in haddii aysan cunooyinkooda la socon in ay cayilaan ayna adkaato inay murqo dhistaan. waxayna u baahan yihiin marka inay cayilkooda marka hore iska ridaan si haddii rabaa inay murqo dhisaan, kadibna ay sameeyaan jimicsiyada ugu habboon ayagoo iska ilaalinaya cunooyinka carbohydrateska kuwaasoo sonkorta dhiigga sii korinaya cayilkiina kasii qayb qaadanaya. marka dadkan waxaa kaloo kusii adag inay miisaanka iska dhimaan. si ay ugu guuleystaan waa inay yareeyaan cunooyinka ay aadka u cunayaan kuwaasoo ka qayb qaadanaya cayilka, ayna kor u qaadaan jimicsiyadooda. waan rajeynaya inaad muuqaalkan wax badan aad ka fahantay. haddii aad ka heshay like saar, qof anfacaya haddaa garanaysa share u dheh. asalaamu calaykum.